maalin maalmaha ka mid a waxaa jirtay qiso cajiiba. dhakhtar ayaa waxaa soo korisay hooyadii isagoo yar. aabihiis ayaa dhintay. hooyadii waxay ka shaqayn jirtay dharka ay u dhaqdo dadka deriska ah. gacmaheeda mar walba waxay ku isticmaali jirtay daawooyinka iyo shaambooyinka dharka lagu dhaqo. dhakhtarkii inta uu cisbitaalku joogay wuxuu bartay gabar ka shaqaynaysa cisbitaalka. maalin buu isku dayay inuu hooyadiis baro. markii hooyadiis ay aragtay ayay ka booday oo tiri, aniga ma baranayo hooyada, ballan kale ayaan leeyahay. hooyadii guriga ayay isaga noqotay. dhakhtarkii wuu yaabay. su-aalo ayuu weydiiyey. wuxuu ku yidhi, maxaa hooyaday aad u arki weysay? waxay ku tiri, hooyada maalinta arooska keliya waxaan kaa codsanaa inaysan gurigeenna imaanin, sababtoo ah markii anaga aan deganayn xaafadahaas waxaan arki jiray hooyada oo dharka noo dhaqda. marka way garanayaan waalidkay iyo walaalahay oo dhan. marka biliis haddaad jeceshahay hooyadaa ha keenin meel aan joogo, arooskana ha keenin. tale ayaa ku labalabowday. dhakhtarkii wuxuu u yimid brofesorkiisii jaamacadda oo ay aada saaxiibo u ahaayeen, talooyin badanna uu ka qaadan jiray. wuxuu uga sheekeeyey wixii dhacay. brofesorkii jaamacadda wuxuu ku yidhi, u noqo hooyada, u tag, waxaad tidhaahdaa maanta waxaan doonayaa inaan gacmaha kaa dhaqo oo aan kaa nadiifiyo. hooyadii way la yaabtay. wiilkeedii weligiis ma dhihin. wuxuu arkay jactadka jirkeeda sida uu u rafaadsan yahay, dharkii ay dhaqi jirtay iyo dhibaatadii ay ku soo korisay. hooyadii indhaha ayay ka ilmaysiisay. waxay aragtay wiilkeedii waxa uu samaynayo maanta inay tahay midii ku habboonayd. wuu soo baxay, meel buu fadhiistay. wuxuu soo xasuustay aayadihii qur-aanka iyo xadiiskii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam, aljannatu taxta aqdaami alummahaat. وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. وقوله أيضا: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ballamay wiilkii iyo gabadhii ciddeeda. waxay ku heshiiyeen in markaasi uusan gabadha guursanaynin. iyadana wuu u sheegay. wuxuu ku yidhi, haddii aadan doonayn hooyaday, anigana ma ku doonayo. arrinta la yaab kale waxay ahayd, gabadhii jacayl xun bay u qaatay dhakhtarkii baariga ahaa. ayadii aabbaheed waa isa soo raaceen. waxay yimaadeen gurigii hooyadii dharka dhaqi jirtay oo ay markii hore ka faani jirtay. markaas ayuu wiilku wuxuu ogaaday taladii macallinkiisii jaamacadda. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.